dhammaan marti sharafta dhalinyarada bahdii hore sportiga raggii sportiga magaca Soomaaliyeed ku lahaa iyo dhammaan reer Stockholm waxaan leeyahay ku soo dhawaada tournamentiga suuqii ay sanad walba qaban qaabiso oo maanta inoo bilaabanayo taariikhduna ay tahay 12 July 2010 soo dhawaada ayaa waxaan idin leeyahay dhammaantiin sida la socotaan sanadka waxaan xusid mudan sida hore loogu sheegay inaan soo dhaweyn dheeraad ah u sameeyno kooxda Australia oo meel fog uga timid inay bartaan walaalahooda dhalinyarada Yurub degan si u bara lahaayeen ay uga soo qayb galaan tartankan maanta dhac qabsoomaya ayagana waxaan leenahay ku soo dhawaada Stockholm waxa u timaadeen walaalihiina gacmo furan ayay idinku soo dhaweey doonaan hadduu Ilaahay yiraahdo dhammaan guud ahaan ujeedada ama sababaha aan tournamentiga tartankan loo qabto waa iska cad yahay inay dhalinyarada Soomaaliyeed ay helaan meel ay ku kulmaan isku weedaarsadaan aqoontooda iyo fikirkooda kala duwan iyo in dhalinyarada looga hortago waxyaabo badan oo muqaadaraadka ku jiro ama dambiyada badan oo dhalinyarada ay galaan sababtaas ayaa noogu weyn inaan u qabano sanad walba tartankan marka waxaan leeyahay dhalinyarada loo yimid reer Stockholm waxa matalaysaan guud ahaan waddanka Sweden gaar ahaan Stockholm gaar ahaan xaafadaha Rinkeby iyo Tenista ama Julista ama Akalla ama Kista waxaa idinkaga baahan yahay walaalihiina safarka dheer idinka yimid inaad gacmo furan ku soo dhaweysaan oo aad tustaan wixiina Stockholm looga bartay 12 sano ay ciyaaraha ay qaban jireen oo Stockholm ay ku mutaysatay in loogu magac daro hooyada sportiga ee Yurub magacaas dheedheel kuma imaan dabcan rag baa ka shaqeeyay sidii magacaas Stockholm ay ku heli lahaayeen ayagana waxaa leeyahay ajri khayr Allah idinka siiyo guusha u soo hoysay reer Stockholm dhalinyarada martida noo ah ayagana waxaan leeyahay waxaa marti u tihiin reer Stockholm adinkana waxaa idinka baahan yahay inaad muujisaan akhlaaq wanaagsan waayo waxaa matalaysaan gurigii aad ka soo tagtay waddankii aad ka soo tagtay intaba ayaa matalaysa marka haddii aad wax xun laga arko lama dhahayo shakhsigii ama kooxdii ayaa xumeed waxaa la leeyahay waddankii iyo familku reer dhalinyaradaas ay ka yimaadeen ayaa xumaa marka waxaan leeyahay dhalinyaroy reerkiina iyo waddankaa ka timaadeen magaxumo yaan loo soo jiidin mar labaad ku soo dhawaada dhammaan siyaasiyiinta dhammaan dumarka dhalinyarada yaryar raggii sportiga magaca iyo sharafta ku lahaa oo ka duqoobay maanta hawshoodii ayaa wadna laakiin waxaa leeyahay ku soo dhawaada sidoo kale fanaaniinta culummada waxaa leeyahay ayagana ku soo dhawaada culummadana waxaan ka codsanaynaa insha Allah inay qayb wax nagala qaataan tartanka intuu socdo oo wixii wacyigelina ama xagga diinta waxay ka qabto sportiga kala duwan inay mar walba na garab taagnaadaan waxaan mahad aan u soo celinayaa dhammaan booliiska xaafadda ninka la yiraahdo booliis qafka Hans Erik hawshii uu ka qaatay isku soo abaabulka tournamentigan tack så mycket Hans jag tar på svenska senare men jag tar bara somaliska först maxaa yeeto iyo dhammaan dadka qayb ka geystay inuu tournamentigan qabsado sida xawaaladaha Sahal Express Qaran Express iyo Dahabshiil iyo dhammaan xisbiyada kala duwan sida Milyo Partiyeedka iyo Social Democratiga iyo moderaadka oo ah kan hadda xukunka haysta kulligiin waxaan leenahay waa maasantiin qaybtii aad ka geysateen inuu tournamentiga u dhaco iyo idroot waltinga waa halmaamay naftooda
qaybta isboortiga ayagana qayb libaax ayay ka geysteen inuu tartankan sanad walba uu dhaco waa mahadsantihiin dhammaan isku soo dhawaada Stockholm